cabdimaalik muuse coldoon oo kulamo la yeeshay cabdimadoobe iyo gruubkii khawaarijta ahaa ee Arsenal u soo wakiilatay inay ka dagaalamaan deegaanka Sool iyo Buuhoodle isagoo shaar qabiil inta uu soo xidhay cabdimaalik iska dhigaya nin dhulbahante iyo Sacad Yoonis heshiisiinaya ayaa arrintaasi waxaanu idinka haynaa xogo fara badan iyo cabdimaalik oo la filayo inuu maalmaha soo socdo goosan doono ama saldhig weyn uga samayn doono huwantay khawaarijta Somaliland haddaba barnaamijkaasi ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijkeenan guud ahaanba maanta marka hore barnaamijka ku soo dhawow siina share gare subscribe the channel keena Dhigaal TV followna the page keena okay cabdimaalik sheekh muuse coldoon oo aad wada garanaysaan oo inta badan ay dadku u yaqaanaan nin samafale ah oo dadka masaakiinta ah hiliya dabcan way jirtaa aniga u marxaati furayo barnaamijka waa ku fiican yahay laakiinse dhanka siyaasadda iyo waxyaabuhu dhexbooda iyo cabdimaalik tiisi maahan laakiin wuxuu la soo baxay wax kale oo isku qarinayay cabdimaalik waa nin khawaarijta toos ula shaqeeya waxaanan barnaamijkan ku faahfaahin doonaa sidii uu la kulmay cabdimaalik waxa uu tagay Buuhoodle iyo deegaanada halkaana waxaynu ognahay nimanka khawaarijta ah ee welibana cabdimadoobe uu maamulo iyo sniperska inay jiraan xeryo lagu tababaro oo lagu soo saaro dhalinyaro ka madax bannaan nimanka waxay ugu yeedhaan jamaahiirta iyo kuwa khaatuma iyo huwanta kale laakiinse huwanta uu ka mid ah cabdimadoobe iyo gruubkiisa ka amar qaata Fahad Yaasiin iyo halkaasina xiriir la leh Arsenal iyo gruubkaasna toos ula leh si haddii dagaalka halkaasi uu ugu kululaado koonfurta nimankaasi inay saldhigyo ka samaystaan sidoo kalena saldhigyo hore ku lahaa deegaanada inta badan aynu naqaano ee Culmadow iyo Galgala okay ninka la yiraahdo cabdimadoobe waxaynu ognahay inuu bartaasi saldhigyo waaweyn ka samaystay sidoo kale uu saldhigyo ku leeyahay deegaanada gobolka Sanaag oo halkaasi uu ka wada hawshaas cabdimaalik haddaba si uu barnaamijkaasi u tago uguna soo kulmo waxyaabo fara badan la iskula soo afkarto waxa uu xidhay shaarka ka duwan way kaartooyinka waxa la yiraahdaa al-harb khid'ah dagaalku waa kaarto okay waxa uu xidhay shaar ka duwan wuxuu iska dhigay nin nabadayn u socda oo beelaha dhulbahante iyo jifada uu ka soo jeeday ee Habar Yoonis uu ka yahay ee Sacad Yoonis uu iska dhigayo nin nabaday ka wad markuu deegaanada marayay wuxuu soo duubay kaliibyo uu ugu talagalay in lagaga jeesto kaliibyada waxa aad u faafinaya haddii aad u fiirsato nimanka huwanta cadawga gudaha ee Jamhuuriyadda Somaliland nimanka la yiraahdo al-Ictisaamka iyo niman kaleeto oo khawaarijta laftooda ayaa aad u baahiyay kaasi oo muuqaalada qaar aad arkayso iyagoo milyan ku dhawaad si kastaba ha ahaatee nimankaasi muuqaaladaasi wuxuu iska dhigayaa nabadayn dad buu la kulmaya dariiqa qolomaatihiin ee Sacad Yoonis halka anagu nabad baanu hayna waa barnaamij la soo diyaariyay waxaad arkaysaa iyagoo isku soo ninkii hebel baa ninkan ila socda waa barnaamij dhammaystiran nin baad arkaysaa halka garabka ayuu ku sitaa qori furin buu taagay wuxuu leeyahay nabad baanu joognaa geelaan wada beenta iyo khuraafaadka waxaan doonayaa haddaba nabadda uu sheegayo iyo reerka uu ka soo jeeday ee Sacad Yoonis iyo nimanka huwanta wixii dhexmaray iyo nabaddan aan doonayay inaan dulsaago waxaan ognahay qofkii ugu horeeyay ee nimanka huwantiintii toogata muuqaal iska duubato wuxuu ahaa nin askariya oo welibana Sacad Yoonis muuqaal waa la hayaa sidoo kale 25 August ciidan bay eryanayeen niman ciidana waxa weeyaan dawlad bay waxba jiray okay nimanka dhulbahante deegaankaasi kuwa dagaalka ku jira mooye ciidanka qaranka iyo waliba reeraha garab degan ee Habar Jeclo iyo Sacad Yoonis iyo reer kasta oo isaaqo halka degani cid kala dhibaato looma geysan 8 bilood ee uu dagaalku socday af iyo adin midna looma geysan okay 25 August inta ay yimaadeen
deegaanka ugu sokeeya Sacad Yoonis deganaa ayaa waxay dhaafi waayeen caruur iyo hooyadood oo intay gowraceen ayaa waliba dhaawac wax lagu dhuftay ninkii caruurtaasi dhalay. Okay, bal hadda halka ay dhig ninkaasi arrintiisii wixii ka dambeeyayna waynu faahfaahin. 3 nin oo geel jira oo geelooga la joogana waa kuwii afduubtay ee waliba ninkii Khaliif ee dhanaa ee waxa ku matalayay golahana uu yiri isagoo intaasoo jeer baan kala hadlay maalintii u dambeysay wuxuu yiri ama haystaan ama hadaayaan aan waan la hadlay yacni qoos uu ka istaagay waana la diiday. Okay, intaasi markii ay dhacday waxa yimid sidoo kale ninkii wuu boogsaday waa kii intuu halkaa ka baxay yeele ku soo laayay rag oo nimankii uu u tuhmayay inay dileen xaaskiisii caruurtiisina gowraceen. taasi abaalkeedii may odhanin anaga Sacad Yoonis baa nagu nimankii baatan may odhan Sacad Yoonis baa anaga nagu duulay intay soo kaceen bay boqdarkeen soo weerareen. dagaal baa ka dhacay sababtii ninka darteed baa boqdarkeen loo gubay oo intaasoo magaalo loo gubay oo dad 150 ah ay ku dhinteen meeshaasi. maxaabiis baa ayaa intaasoo baa waxaasoo dhan baa ka dhacay. waxaasoo dhan waxa sababay nimankaasi dagaalkii uu ninkaasi ku soo aadsanayay ayaa sababay. nimankii abar jecla maysan odhanin annaga dee Sacad Yoonis baa idin laayay ordo oo kan kale isaaq waa isaaq iyaguna ma kala saaraan. daarood oo dhan baa joogay huwan oo dhan baa joogtay nimankaasay weer. Okay, haddaba Cabdimaalik muu odhanin war nimankii dagaalku may jirin 3 nine war horta bal nabadan aad sheegaysaan bal aynu ka wada hadalno. lama odhan war caruurtii aad layseen maxay idinka meel yaalay in dagaalku may jirin caruurtii. muu odhanin Cabdimaalik ilaa waa isaaq habar jeclaba waa niman reey tolkiye muu odhanin war haddaad nabad wadaan dhulbahantow bal ka hadlo magaalooyinkii la gubay meel ku sheega. isaga ujeedkiisu waa hal midoon waxa weeye inuu dadka meeshan uu ku socdo iyo shirarkan uu soo galiyo si looga mashquulo inuu kaliibyada soo daayo oo dadka waxa ku mashquuliyo. Okay, haddaba waxbaan idin sheegaya dawladda Somaliland iyo sirdoonka qaranka iyo guud ahaan cidda dareenaysaba arrintan waa arrintii sidii mar hore ay sameeyeen abwaanageeyeen ninkii loo oran jiray kasbu ayrsiyay marka hore laakiin hadaladiisa iyo gabayadiisa iyo ficiladiisa waxyaabo sameyn jiray iyo suuska dhigay jiray waynu garanana. sidoo kale ninka la yiraahdo Aadan Sunne Sheekh Aadan Sunne oo intaasoo jeer la xiray oo kan kale oo tolkii u kacay oo intaasoo oo wasiiro oo intaasoo dadii oo markii dambe la damiintay oo xabsiga laga soo habeen madowga caruurtiisii iyo xaaskiisii isagiiba ka dageen khawaarijta dhexdeeda maanta waynu ognahay. Okay, nimankii hore ee nimankan Arsenal aasaaskooga lahaa Ibrahim Afghani iyo ina godanaan sida maanta Cabdimaalik oo kale kalkoorahay niman bulshada wax baraya dooday gali jireen salafiyiinta isqabsan jireen masaajidada barnaamijyo nabad waxba laga hadli jiray markii dambana way goosteen. Cabdimaalik maanta message buu inoo soo diray wiilkiisii u bixiyay jihaad waryaal la jihaadaya cidda la jihaadaya waa ay maanta Somaliland jirta waxa weey khawaarijta بريجي تقالدي أسرم تيبا نقول أيا عرفت لهم حجري هلكن جهاد حيابا نوعاسا لكن ما أنت أنو قرن ماي جهاد كاو عبد المالك وبحي ما ينكيس ما فلسطين بودريا ما بقدركين بودريا ما خوارج بودريا حتى بوح محل ربع وحويا سيدي لو قرن لها دليرو inta badan aagan buu maxay tahay ay degaan reerahaasi waxa la iska dhigayaa beer la xawsi waxyaabahaas ay qaanaan dhalinyaro bilaa camal oo shilin doona ayaa hadhow toonana laga qoranaya deegaanada hawshan sida lagu gelinaya sidii hawlo fudud looga sameyn lahaa deegaanadaasi huwa nacayb iyo reer nacayb iyo waxyaabahaas aanay u gelin oo ciidamadood iyo wuxuu nidaamkooda ay u dhaxgalaan barnaamijka dambe kalena saar fajidana waxa weeyaan waa faji fahad yaasiisan oo khawaarijisan oo meelo kale laga soo maleegay barnaamijkana waxa wata Cabdi Maalik iyo ninka la yiraahdo Cabdi Madoobe labada nin Madoobe wata barnaamijkana waxa la rabaa in laga balaariyo meeshan oo si fudud saldhigi halka looga sameeyo war arinta maanta hadaan la qaban
dhul bahantana u dan maaha habar jeclana u dan maaha sacad yuunisna u dan maaha isaaqna u dan maaha ninka dagaalada qabiil hadduu noqdo siyaasad hadduu noqdo wax kasta oo laga heshiiyaa cali saahid maanta waa taa la soo afjaray ceelaf weyn intaasoo dhan baa rag la isku keenay berri toole tana way dhammaan kartaa waaryaa khawaarijii isku keeni dad kale hadday maanta deegaankaa ku beermaan uu berri toole cabdimaalik amiir weyn noqdo uu deegaankaa inagu hogaamiyo yaa awood u heli doona berri toole hadalkayga maanta waxaa laga yaabaa inay qaar qabiil ahaan iyo reernimo ahaan iyo mucaaradnimo u dhibsadaan laakiin ayaan baa iman doonta 1 milyan oo jeer hadalkaasi soo laabmi doona daarood baa lidhi maalin buu qabashalay oo maalintu laba ah war ninkaa maanta dhukuran aynu iska qabanno wuxuu wadaa ma aha reera iyo wax nin iyo nabad wax ka weyn buu soo wadaa ninkaasi hala iska qabto waxaan leeyahay dhammaan asxaabta meeshan igu jirta ee daawanaysa barnaamijkan laliya meel fog gaarsiiya aad baan idin wada